الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عشرة فربنا رأي الله صبرت أرضي كوك كلا دوان يبوقت كلا دوان إذا صبر نبوكي صدحات بانوسي قدمنا يدفلوبن سكيلسها. إذا عشرة فربنا نيو كونسبت إنجليش عن هراي وسوق على وأنا مهم جدا. سمعني صار أونلاين ترينين وحي معلومات وديري حسوس ودرينا دايركت نمبر. إذا عشرة فربنا أرضي يسوق عتنا أرضي كون ولا أريزونا زاندياغو North Carolina iyo South Carolina ardayda Minnesota ku nool si siman baa loo wada qaadan doonaa. Ardayda Australia iyo Canada ku sugan, ardayda Birmingham City iyo London ku sugan, iyo ardayda Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ku sugan si siman baa loo wada arki doonaa. Iyo ardayda Turkiya iyo Kuwait iyo Dubai ku sugan iyo Saudi Arabia, ardayda kale ku sugan Djibouti iyo Kenya, iyo ardayda Maine Soomaaliya ku sugan sida Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Galkacyo, Garowe, Beledweyne, Cadaado, Baydhabo, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, Bay, Bakool, Gedo iyo ardayda Galgaduud iyo Mudug ku sugan ba si siman baa loo wada qaadan doonaa. Waana muhiim jiddan taasi casharo fara badan hore aan u soo aragnay. Step bookii saddexaad baan u soo gudbaynaa developing skills iyadoo tilaabo aan u qaadayno new concept English developing skills and integrated course for intermediate students. Direct number waa marjaan la soo xiriiri lahayn somalistar@yahoo.com. ardayda imtixaanada galaysa la soo xiriiri doonto somalistar.online@blogspot.com. videoyadan kasii fiirin doonaa haddii aan u baahano. waana injineer maxamed xamuud barre casharadiisii taxanaha miigaanka ahaa iyadoo step aan usoo baranay cashiro kala duwan. halkaasaa lasii marayaa buugii saddexaad cashirkiisii afraad lesson 4 baan soo gudageli doonaa. waana muhiim jiddan taasi the double life of Alfred Blogs ninka la yidhaahdo noloshii labada ahayd ama xayaatadii lamaanaha ahayd ee Alfred Blogs ninka loo yaqaano. These days people who do manual work often receive far more money than clerks who work in offices. People who work in offices frequently referred to as the white collar workers for the simple reason that they usually wear a collar and tie to go to work. Such is human nature that the great many people are often willing to sacrifice higher pay for privilege of becoming white collar workers. This can give rise to curious situations as it did in the case of iyadoo cashiro fara badan hore aan soo baranay. waa cashiradii mihigaanka ahaa ee Somalistar online training. These days maalmahan people dadka who do manual work gacanta ka shaqeeya howl gacmeedka qabta often badanaa receive far more money lacag fara badan bay qaataan. far waxay ugu jirtaa match oo kale dan clerks marka loo eego karaaniyada who kuwaasoo work ka shaqeeya in offices xafiisyada. people who work in offices xafiisyada dadka ka shaqeeya xafiisyada frequently badanaaba referred waxaa loo tixraacaa to as white collar workers shaqaalihii raqabada caddaa ama kalarkooda uu caddaa kuleetiga caddaa for the simple reason waana sababta fudud that usually badanaaba wear a collar and tie bay xirtaan ishaati raqabadiisu dheer tahay ama kuleetigiisu dheer yahay iyo necktie to go to work markay shaqada aadayaan. Such is human nature waa sidaas abuurta insaanka insaanka such as human nature waa sidaas abuurta basharka that the great many people dad fara badan are often badanaa willing ayaa doonaya to sacrifice inay isaga tagaan ama ay huraan oo kale. sacrifice waa nafti hure, sacrifice inay huraan higher pay mishaar fara badan for privilege karaamada ama sharafta of becoming ay ku noqon lahaayeen white collar workers shaqaalihii raqabada caddaa ama kuleetiga caddaa oo kale. This can give rise tani waxay soo dalici kartaa to curious situation xaalado xasaasi ah as it did sidii uu sameeyeyba in the case arrinkii of Alfred Blogs ninka la yiraahdo Alfred Blogs who kaasoo work as a dustman ku shaqayn jiray nadiifiye for the Ellesmere Corporation shirkadda la yiraahdo ama iskaashatada Ellesmere la yiraahdo company. markay company isu tagaan corporation bay isku bedelayaan. waa shirkado isu tagay. when he get married uu guursadayna Alfred ninka la yiraahdo was too impressive
wuu ka qajlay way to say anything inuu wax uga sheego to his wife xaaskiisa about his job shaqadiisa. He simply told her wuxuu kaliya u sheegi jiray that he worked inuu u shaqayn jiray for the corporation companygaas ama shirkadaasi. Every morning subax walba he left home guriga markuu kasoo tagay dressed wuxuu ku libisnaa in a fine blue suit madow qurux badan. He then intaa kadib change wuxuu ku bedelan jiray into the office dharka lagu shaqeeyo oo shaqaalaha nadaafadda ay ku shaqeeyaan baa la yiraahdaa overalls. And spend wuxuu ku qaadan jiray next 8 hours 8 saac as a dustman nadiifiye before returning home intuusan guriga ku noqon at night habeenkii. He took wuxuu qaadan jiray a shower qubays yar and change wuxuu ku bedelan jiray bag dharkiisii hore dib ugu ceshan jiray into his suitkiisii. Alba did this for over 2 years ilaa 2 sano ayuu arrintan waday. And his flew dustman ragga la shaqeeyana ama dadka la shaqeeyana kept his secret way u xafideen sirtiisii. way u xafideen weeye his secret sirtiisii kamay sheegin. Alf's wife xaaska Alfi has never discovered weligeys maysan ogaan that she married inay guursatay a dustman nin nadiifiye ah. And she never will mana ogaan doonto for maxaa yeelay Alf ninka la yiraahdo has justified hadda buu helay another job shaqo kale. He will soon be working dhaqso wuxuu ugu howlgali doonaa in an office xafiis uu ka shaqayn doonaa. And a junior wuxuu ku shaqayn doonaa shaqaale hoose. Senior waa sare, juniorna waa hoose. Clerk shaqaale hoose uu ku shaqayn doonaa. He will be earning wuxuu xoogsan doonaa ama heli doonaa only half Killian's as much mushaarkii uu qaadan jiray halfkiisa uu qaadan doonaa. As he used to be sidii uu horeyba mushaarkii uu qaadan jiray halfkeedu uu qaadan doonaa. He feels wuxuu dareemayaa baa la yiri that his race dalacaada ku timid in status xaaladiisa is well inay hagaagsan tahay ama inay fiican tahay istaahisho. Is well worth inay istaahisho the loss inay ka lunto of money lacagta. dalacaadu dalacay lacagta inay ka lunto way u qalataa buu leeyahay. From now on hadday wixii ka dambeeya he will wear wuxuu xirnaan doonaa a suit dharkiisa suudka all day maalinka oo dhan. And others will call waxay nagu yeeri doonaan dadka kale master blogs aa lagu yeeri doonaa not Alf. iyadoo casharo fara badan hore aan usoo qaadanay casharadii buuggii saddexaad ayaan ku guda jirnaa vocabulary-ga. waa gifkeen another word erey kale or phrase ama word to replace aa ku bedeli karto the following adoo raacayo words ereyada as they are used aan soo isticmaalin in the passage kusoo isticmaal. receive oo kale waa helidii. sacrifice waa huridii. privilege waa karaamada ama sharafta. curious waa xasaasi. discovered waa ogaansho. fan baa ku bedeli kartaa discovered haddii aad doonto. iyadoo casharo fara badan hore aan usoo qaadanay ardayda ayaa laga doonayaa inay bedeli karaan erayadan. iyadoo casharo fara badan hore aan usoo qaadanay waa Somali Star Online Training casharada buuggii saddexaad ayaan ku guda jirnaa step ayaan ula socon doonaa waana muhiim jiddan. wixii macluumaad oo dheeri waxaan isugu soo diri doonaa direct number. tilaabo buuggii koowaad iyo buuggii labaad waa soo dhamaaday. buuggii saddexaad baa la sii marayaa. halka ayaan kala sii socon doonaa haddii aan doonno. iyadoo ardayda meel walba ay adduunka ka joogaan ay la socon doonaan casharadan oo taxanaa. haddii ay rabaan casharadan exercise-kooda oo dhammaystiran waxay la soo xiriiri doonaan wixii macluumaad oo dheeriya direct number. sidaa darteed fi amaanallah wasalaamu calaykum waraxmatullah.